waxaana wanaagsan asxaabteena qaaliga waa markale barnaamijkeennii waxaan idin tusayaa sida xuruufta small letterka capital letter loogu bedelay halkan idin tusaya marka koowaad waxaan qoranaynaa qoraalkan ayaan qoranaynaa imika tusaale nin sun ku siiyey subag sii waa mamah ama waa murti af soomaali ah marka taas ayaan tusaale usoo qaadanaynaa kadib waxaan leenahay small letter xuruftan waa capital letter sida uu dhanyo waa capital letter sida small letter looga dhigi lahaa ayaan halkan idin tusaa amase iyadoo small letter capital letter sidii looga dhigi lahaa ayaan idin tusaya markaas waxaad u baahan tihiin markaad page badan aad qoraysaan si aad hal ugu bedelin maxaa la yidhahdaa hal si aadan ugu bedelin oo marka wada bedeshaan falowgeyga ayaan halkan idin tusaya marka koowaad sidaas oo wada dooranaysaa meelaha inay small letter ama capital letter aad ka dhigto doonaysaa saas oo wada dooranaysaa halka home kaad imanaysaa halka yar calaamadaas eeda weyn eeda yar ay ku sawiran tahay baad galaysaa change case baa la yidhahdaa markaas saas u galaysaa iminka upper letter bay taagantahay upper letterka waxa weeyaan waa xuruufta waaweyn weeyaan markaas ku yar yar iyaga dhig baan leenahay sida uu dhantay wuxuu ka wada dhigayaa xuruuf wada yaryar buu ka dhigayaa capital letter markaa ka dhigaysa isla halkii baan ku noqonaynaa homekaan tegaynaa kadib halkii yareed baan galaynaa upper letterkaasaan imanaynaa saasay xuruuftii waaweynka u noqonaysaa inaad fahamteen baan rajaynayaa markaas waqti aad joogtaan oo wanaagsan ayaan idin rajaynayaa goor walba aad joogtaan dhammaantiin